magacaygu waa Mahdi Maxamuud Sheekh waxaan ahay dhakhtar Soomaaliyeed Stockholm ka shaqeeyo laakiin Stockholm degan laakiin waxaan ka shaqeeyaa Enköping Enköping waa magaalo waxay Stockholm u jirto Västerås ka hor kan hadda isticmaal ka war maanta waxaan jeclaan lahay inaan ka hadalno cudurka la yiraahdo murugada iyo walwalka marka hadda si fiican lii maqlin waa lii sheegi karaa waxaan ahay dhakhtar Estela kale Swedish ku yaqaanaan waa dhakhtar takhasuskiisa wato oo fadhiya xarumaha caafimaadka war centralka cuduradan maanta waxaan jeclaan lahay si guud ahaan inaan uga hadalno si aad u fahantiin waxyaalaha keeno calaamadaha lagu garto sida oo loo yani xaqiijiyo iyo daaweyntoodaba maanta marka intaas hadaa fahantiin hadafkay waa gaaray caawano faraxsan saxan doona insha Allah marka si fiican u dhageysta su'aalana gadaala ka dhigan doona insha Allah marka murugada sida maxaa waaye waa cudurkan wuxuu ka mid yahay cudurada ayaantan zaid ku faafo oona ka mid yahay tusaalahan dhiig karka wadna hawlgabka wadnaha sokorowga waa cuduro oo lagu yaqaano xiliyadan casriga ah waligood way jireen laakiin ayaantan soo batay marka murugada wuxuu ka mid yahay cuduradaas waxaan lagu qiyaasaa qofka cimrigiisa khatarta cudurkan sidoo ugu dhici karaa khatartiisa see waay marka qofka dumarka ugu dhow ragga oo 36% uu ku dhacaa dumarka raggana 23% amal ku dhacaa qofka cimrigiisa marka loo fiiriyo khatarta wadankan hadii la fiirayna markiiba 5% ilaa 8% oo wadanka dhan oo 10 milyan ah cudurkan qaban marka cudur aad u weyn waaye cudurkan wuxuu uga duwan yahay cudurada kale wuxuu qabaa wax la yiraahdo stigma waa Swedish stigma Soomaaliga magac oo eri soo u fasir waa garan waaye ayb ma la dhihi karaa ama daleecayn waxun oo macnaheedu waxa laga wadaa hadda qofka haduu ka jabo kale ama uu isbitaal la geliyo oo la qalo kale dadka ehelka oo imaanayo qofku wax waaye uu masaajidka u sheega waa oo imaanaya asxaabtiisa cunto loo keenaa qudaar madaxa loo salaaxa ilaaha ku caafiyo laakiin cudurkan kale qofka haduu ku dhaco waxa laga yaabaa inuu qarsado inuu la xishoodo ama inuu cidna u sheegin marka stigma soo qaba waa stigma waxa lagu fasiri karaa kale hada qofka hadii bark la qabto kale ab weyn ma laakiin haduu AIDS ku dhaco kale ab waa marka stigma saasa ka wada marka cudurkan murugada maxaa keeno ama takoorid rabbiyo marka murugada waa maxay runaantii cudurada daaweyntooda iyo xaqiijintooda waxa la isticmaalo waxa la yiraahdo international guidelines oo macnaheedu yahay adduunyada oo dhan dhaqaatiirta way kulmeen oo waxay isku raaceen sidaan soo socotay in la xaqiijiyo cudurka soo dhakhtarka uu soo rabo uu qofka u daaweyn ama uu xaqiijiyo qofka sidii loogu tiimbareeyo cudurka inuu qabo waa in laga helo labadaas mid ka mid ah dansanaan ama farxad ama xiisaha yaraado maxaa loo jeedaa marka qof waxa laga yaabaa inuu iska bashbash ahay iska farxaan ahay uu dadka la sheekaysan jiray uu firfircoonay marka daarta hebel in ka jajaban tahay oo kale uusan si hor u faraxsaneen waxa ka mid tahay qodaas mid laas marka mid in laga helo way intaas loogama harayo handana waa in laga helo qodobadan madmadow oo ku qoran 5 ka mid ah oo maxaa ka mid ah miisaankiisa oo isbedelo tusaale ahaan qofkii muruga ku dhacday xogaa cuntadu badsaday cunto badan oo cuna miisaankiisa kor u aada qofku buurana wacyiila ama miisaankiisa cunto badan cuna xogaa waxa ka xirmay aptitka qofku cunto dhan ma xiisanayo oo miisaankiisa u dhaca waxa kamid ah qofka hurdada ka qasanto hurdadii waxa laga yaabaa qofka inuu qabadkeeda u dhibabo oo hurdada inama iskalin karo habeen ma saxan karo
أما هردي وهردا لكن وحير كبع سوكعة والعمل أما وحجر أما صبح أرورتي سوكعة فجر كهر على ما يكمل أما قفك هردا أو بطبع هردي سباطه ويعني شغلوا كيما هروس كسحنا إلا ما نتك الهردا أنت قلبك شنات فكر كأكو قري لكن أنت فكر ككلمة هن medical term كحل لها سيكوموتوري كنا سوديش كن ومعنى الحواقف كمسكح دي سقيبها سلسلة هو صداع وعمل حصوص تعدي بهسو فكر كها وحوا إلوشي سببنا يسوع صالحان وحلاقي ما حساب تعامل وكشقين جرا ولا أفوض إنه دبكو نقط مركب فكر كتاس أو كذا ضعيف إنما قفكوا عليها لا أو جركوا دمه يعني وقفك واحد بحمل واي مسكحين حتى تبرتها بربيا وحتى مركان ومرك وقفك لا دقينها استقالان ما دام حوا وحوا قفكي شغلوا قيمة ودالين هاي دال زايدة قالي ورقي وحاسبا محيسانا مربو قفك وحدرين كلام وحان إنه قلت كيسيهين إنه ضدك كلا كقيمة ليتو وحوا مركو صبر برا ضدك كلاتو إنه كجابي كاسي وسباستا حسوستا وحي لصعة فكرك وقفك حاليا فرها يريد إنه وقتها طبقة دار إنه كتها waxyaalo oo waxa dhibaayo waxa inuu xusuusto qofka wax uu sheegay waa la balantay bari wixii ma xasuusto tan ugu hooseyso oo ugu daran waxa qofka dhimashaaraadin inuu gaaro heerka dhimashaaraadinta oo macnaheedu tahay qofka mugdi uu ku jiro xal inuu waayo uu markaas dhawmaa iska dhimatay badan fakarkan inkastoo qaldan yahay haddana waxa waaye aad u badan yahay intaan miya marka qodobadiis may labaas geedin laga helo waa mid kow kuwan madooga shan kamid laga helo waaye taasina ii socota laba wiig oo xiriirto sababta qofka bilaan ku dilaa ku dhici kartaa dib ma laantaas cuntada mar u badan kara mar u yareen kara dib ma lahan xusuustu way loo kara aniga marka suuqa aaday waxna marka qortaa hadii kale waa kala hilmaama alaabta gaaraan hadii alaabta badan marka taas laga ma hadlayo waxa laga yaabaa waxyaalo oo la xaqiijiyay waana in qofka waxaan wax kale loo saarin kan cudur kale inuu qabin kow daawooyin in loo saarin karin daawooyin oo qaata darteed waxa inuu ku dhacaan marka hadda xaqiijintiis waa garanay maxaa marka keena cudurkan oo qofka sababta keenta maxaa ka mid ah sababta ugu horeysa cudurkan hal wax kelima ah waa waxyaalo badan oo isku tagay oo waxa ka mid ah dhaxal salahan waxa loo yaqaan cudur multifactorial ah oo hal shay kelima ahan uu noqon kara hal ka shay kaliya laakiin badanaa waa hal ama waxyaalo badan oo isku tagay oo cudurkan dhalin karo qofka dhaxal uu leeyahay cudurkan dhaxal uu noqon karaa hooyada aabaha eedada ama ayeeda hadii lahayd cudurkan adeen xogaa dad kale waa uga dhawday laakiin macnaheedu ma ahan 100% inuu kugu dhacayo geeri hadii ku soo gaarto amal oo qof saaxiib ama qof ehel asku fiicnaa ka dhintay xawaay murugo waa gali kartaa taas like normal waa okay waa taas laga ma hadlayo cudurada qaar way dhalin karaan oo maxaa loo jeedaa tusaale ahaan cudur waxa jiro oo la dhaho hypothyroidism waxa waaye qanjirka oo dhunta ku yaalo oo thyroid loo yaqaan waxyaalo soo saaraya hoos u dhacaya qofkaas marka xogaay waxa ku dhacaya dansanaan oo depression uu gali karaa calaamado kale uu leeyahay laakiin taas oo kale way keentaa marka waxyaalaha kan oo kamid yahay cudurkaas stresski walwalkan uu keenaa hadhoon waa gali doonaa qofka haduu walwal badan yahay oo maadran oo waxyaalo kale ku jiro waxa waaye way keeni kartaa stresska nafaqa darada way keeni kartaa murugada waxaana kamid ah gaar ahaan fitamiinada qaar sida vitamin D oo kale oo Soomaalida kulligan ku wada yar yahay vitamin B12 iyo vitamin B6 and folate way keenaan cidlada
way ka mid tahay waxyaalaha keena murugada anaka Soomaaliya hadaan hay ilaahay wuxuu nagu manaystay caruur oo qofku wuxuu leeyahay waqti dadka caruurta lahayna waa Soomaaliya sidoo iska farxan badan oo iska maxal la social way qofka hadda meel fadhiiso ku imaana war haya oo kuma ayraade oo qof waxa way qof oo si Swedish kale manihin marka tan wax badan ay qosaysaa dadka Swedish ka malena inkasta Soomaaliya iska jiraan ayakana oo iska ibla tan ugu badan la ka badan ali loogo waa maandooriga iyo daawooyinka baalkan si fiican loo yaqaan sama waa jaadka iyo maandooriyaasha kale maskaxda si toos u gaaraan oo qofku wixii bedelaan kiimikada maskaxda oo dhan qofkaan arkaysin oo hadalka badan jaad markuu cuno ama oo dagaalka badan waxa uu keenaya kan waay marka maandooriga iyo daawooyinka way keenaan murugada waxyaalaha kale ka mid yihiin calaamadaha murugada maxaa ka mid ah ma xasuusateen yaa ii sheegi kara qaar hadday kow amarna dansanaan waa run fakarkoo yaraado waa kaas fakarka kanoo kale waay ninkaas miisaanka haa waa tufaaxaas matala qofka cuntada maxaa kaleeto hordada waa run ya stresska haa calaamada kamid maan stresska laakiin waxyaalaha keenay kamid tahay miisaanka hoos u dhaco ilowga badan waa sax qofkii waxay xusuusanaan ya مربيه dadka inuu dadka liito صح waa taqarin marka ma sha Allah marka cudurkan selo bala maanta waa loo yahay qofka haduu lug ka jabo raaja la saara wadnaha hadii la qabto mashiin lagu xiraa jirto si loo baaro wadnaha cudurkan la selo baara waxay kamid tahay siyaabada waxyaalaha keena cudurkan xaqiijintiisa inay adkaato sababta qofka calaamad gaar ma lahan lagu garto haduu qof faraxsan yahay qofna murugaysan yahay wajigooda ka aqrisan kartaa dabcan laakiin si toos ah inta dhig ka qaadid ama wax lagu ogaan karo ma lahan marka waxay ku xiran tahay dhakhtarka baarayo khibradiisa iyo su'aalaha soo qofku weydiiyo ay ku xiran tahay oo jeedin hadda dhakhtarka waa kaas qofkeena waa kan wax qalab ma haysto caadi qofka ula hadlaa oo see tahay ayantan ka waran reerkii ka waran wax ma cuntay hurdada iga waran xusuusta ka waran badan dadka ay ka ku imaanayaan ku sheegay maanta waa iga jajabanta shaqada laga soo ceeriyo ama ayantan waxa waay sidii hormi marka xagga sheekada uga bilaabay marka ma jiro wax si toos oo loo baaro cudurka soo dhawaaya marka sidoo cudurada kasta waxay leeyihiin laba si oo loo daaweeyo marka ugu horeyso waa qaybtaas kor ku taalo daawo la'aanta oo qofka maxaa lagu sameeynaa qofka waxa la leeyahay inuu aalamiinteeyo inuu socdo biraqaad qaado uu ordo qofba tayadiisa inta cunto wanaagsan oo isku dheelitiran qofka inuu cuno sigaarka tubaakada imaandoori oo dhan qofka meel iska dhigo sababta taas waxay ka tahay waxay qofka ku ridi kartaa cudurkan miisaanka la dhimo iyo qofka inuu khaar isku sheego asay isdajiyo midda kale meesha ku taalo waxa la yiraahdaa KBT waxay u taagan tahay cognitive behavior therapy waana nooc min cilmiyeed oo qofka waxa la bedelaa fakarkiisa qofkan cudurku uu jiran yahay cudur oo jirka ma waa cudur maskaxiyan marka maskaxiisa la bedela fakarkiisa oo waxa kamid ah tusaale yar hadaan isiyo qofka bakteeri habii loo shubaa exactly san ma sameeyaan dabcan laakiin waa tusaale uun bakteerigi kala bar habii loo shubaa qofku maxaa u jeedaa maxaa arkaysa qofka marka badana oo sid xun u fakaro ama
oo fakarka wax kasta negative arko xulay koobkan baru maran yahay qofka laakiin sida fiican u fakara xulay koobkan baru buuxa labadoo run ay sheegan laakiin qofkan wuxuu xoog saaray barka maran kaasna u jeeda kan kale laakiin wuxuu xoog saaray barka buuxo marka saas oo kale qofku waxa la tusaa qofka oo dhahay baru maran yahay inuu koobkana bar buuxa la tusaa haduu marka fakarkiisa qofka isbedela daaweyn haday noqoto oo qofka intaas markii loo qabto ka bacdi wali murugada ku jiro waxa la siin karaa daawooyinkan hoos ku yaalo oo waa nooc kala duwan laakiin badankoodu wuxuu badan yihiin maada loo yaqaan serotonin ama dopamine oo maskaxda soo dayso qofka markuu murugo ku dhaco maadooyinkaas ka yaraadaan marka maadooyinkaas kor u qaadaan daawooyinkan qofka dhexooga marka wuxuu noqonaa qof farxan kulligood dhakhtar inuu qoro waa marka qofka murugada haduu ku dhaco maal iska daysiisa ma loo daayo maxaa loo dabagalaa oo loo daaweynaa oo loola hadlaa waxaa la ogaaday murugada inkastoo tahay cudur maskaxiyan haddana jirkay saameynaya oo qofka markuu murugaysan yahay dhiigkarkiisa oo kale kor u kacaa qofka hadduu hurdada ka qasanto sokorta iyo guriga jirka wuxuu galaa nooc min stress difaaciisa hoos u dhacay infectionada iyo hargabka waxaas ku dhacay wadnaha hataa waa loo dhintaa dad xajiro wadnaha oo laga qabto markii murugada ku dhacdo xididada dhiig oo kale maskaxda waxyaalo badan qofka ka qasmaya marka si cudurada kale loo daaweeyo waa in loo daaweeyo asagana qofka waa kii kale walwalka asagana sidoo kale u kormareena cudurkan waa maxay horta walwalkiisa walwalka noocyo badan uu kala leeyahay nooc waxa jirto phobic manic oo qofka waasho kale laakiin walwalka maanta ka hadli doono waa walwalka guud ama loo yaqaano generalized anxiety disorder waana walwal oo qofku wuxuu ka walwala waxyaalo iska dabiici ah waa walwal uu qofka kaligiis xalin karin aqli ku salaysnayn sababta taas oo waxa kamid ah qofka asoo guri fiican ku jiro shaqo haysto baawur wax kasta haysto waa inuu ka walwala wixii inuu waayo mana ku jira khatar wixii waayo laakiin qofka asaas ka walwalaya maalin horeeto waxaa lahay qof oo Swedish patient oo ina warar la socoteen mooy dhaqaalaha oo stock exchange maalna bash wax yar hoos u dhacay ninkii marka wuu walwalay baawur uu sarnay radio ka maqlay jidku ka bixi karo wax loo qasnaa la waxa ka wada ninkaas muxuu ahay wuxuu ka walwala markaa weydiiyo waxa dhahay lacag ma ka jirto bash ma yuu dhahay wax lacag iga jirto maxaa walwashay marka waa iska walwala oo marka kala sheeg marka walwal saas oo kale ajiro asagana waxa keeno waxa kamid ah dhaxal oo waxa la ogaad boqolkiiba 3 dadka walwalka ku dhaco way dhaxalaan genetic ahaan stress ka day hadleen qofku uu keeni kara walwalka waxa kaloo kamid ah baalki macalinka asagana uu keena sababta qofka gaar ahaan waxa maandoon kale alcohol karto ugu sareeyo oo qofka alcohol markuu waa daga laakiin waxa ka bacdan walwal wuxuu ku kacinaysaa oo aad u badan jaadkana waa la mid oo wala socotiin Soomaaliya markii la joogo qofka haduu jaad ka go'o soo noqonaya looma gali karo marka asagana saloo baara sidoo kale loo baara waa qofka laga helo walwal iyo walaa ila 6 bilood ka badan wax socdo in jiraan waa taas oo qofka ku adkaato inuu kaligiis xaliyo labaas in laga helo waa muhiim intaas markii laga helo saddexdan oo buluuga ku qoray mid kamid ah laga helo waa hadda 6 waa ilaa 3 kamid ah laga helo ku filanta oo maxaa kamid ah kadleen qofka inuu meel fadhin karin maadan lugtu saandaha magacantu yani kali qolku soo horeyga oo socona meel ma fadhin karo ma xasiloon karo qofka daal dhow oo wax yar qofku wafto waa daala walays xagga fakarka waa ka day kadleen qofka xusuustii fakarkii wixii dhan dhibaayo qofku xeela ku dhaheesa oo cununa asadan uu qarxa iyo hurdada ka qasanta waxa asma xikmada calaamadaha
intaas marka laga helo intaas loogama harayo waa in la cadayn karo nolol maalmeedkiisa waxaanay saameeyeen oo qofka hadduu xanuun qabo uu ka shaqaysan karo oo dadka caadi uu la macaamil karo taas walwal ma la dhihi karo laakiin waa in nolol maalmeedkiisa saameyso shaqadiisa oo kaleeto cudur ama maandoorin uu qofkaas cunana inaan loo saarin karin si kale loo cadayno waa in la waayo marka xaqiijinta aad u adag waxaan loo adkeeyo waxa la diidaa qofkiisa lagu tiimbaray waxyaal marka wadanka khasantay inuu dhaho walwal ahay asagana waxaa loo daaweeyaa sidaan oo kaleeto daawo la-aan waxaa ka mid ah qofka in la dhaho orod gaar ahaan orodka rucleynta orodka fagaxda ma aha qofka daalaya orodka xogaay oo yogning soo dhishka dhahan rucleynta sigaarka tobaakadii maandooro inuu meel iska dhigo miisaanku qofka uu yareeyo waa muhiim inuu qofka nafta khayr u sheego uu isdejiyo iyo koobitay aday ka hadleena koobkii marnay ama koobkii barbuuxi in la qofka la tuso inta hadda qofka wax ka tari waayaan daawooyinkan hoos ku qornaa la siin kara afartan ugu horeyso waa daawooyin oo khatartooda saas uma badno oo qofka hadduu cuno muu keenays wax la dhaho dependency ama berwinda qofka ma noqonayo qofka si mandoori camal ma u qabanayo markuu waayo daawooyin waa cuna qofka badanaan looma cunabo waxyaalo kale loo cuna leegigaan oo kale kan labaad naagaha waxaa la siiyaa uurka labadoo kale loo siiyaa laakiin waa la cuni karaa walwalka xataa loo cuni karaa qofka daali ku keenta dhibka ugu weyn taas waa daalkaas keli tan ugu hooseyso waa la siin karaa laakiin ayadoo waxay leedahay dhib oo qofka mar hadduu bilaabo soo ku joojiyo waa adagta marka badan waxaa la siiyaa dadka aadka u walwalka badan qof kasta la iskama siiyo sawirkan waxaan isticmaalay sanad ama 2 sano ka hor anagoo ka hadlayno ka hortagga cudurrada dabiiciga sida sokorowga wadna qabadka dhiig karka laakiin ahaantii sawirkan hadaa fiirisid exactly waxyaalaha qofka loo sheego markuu walwalkaayo iyo murugada waxyaaluhu iska daynayo waxyaaluhu sameynayo qofku waa inuu cuno cunto fiican oo isku dheelitiran maxaa ka mid ah qudaarta hilibka kale laakiin si qiyaasan inuu yareeyo carbohydrate kale baastay bariiska inuu iska yareeyo qudaarta badsado iyo hilibka iyo waxyaalaha fiican inuu aalamiinteeyo miisaanka inuu dhimo sigaarka tubaakada iyo maandooro dhan inuu iska daayo alcohol xaga ku qoran laakiin Soomaali hadaan alcoholka aad u yaryahay laakiin booskiisa waxa galay bahalkii macalinka ahaa jadka iyo qofka inuu walwalka iska yareeyo dhaxdan waxa ku taal cusbadana khatarteeda leedahay laakiin taas inta si toos uma saameynayso dhiig karka ku sii taas waa mahadsantiin